dablay lagu toonsan yahay inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab ayaa weerar waxa ay ka geysteen deegaanka Qorof Xaraare ee dhaca bariga magaalada Wajeer sida uu faafahinta warkan ay noogu eegayo wariyahayaga Cabdisalaan Dalmar kadib markii dablay la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ay weerar ka geysteen deegaanka Qorof Xaraare ee dhacda bariga Wajeer halkaas oo ay ku burburiyeen anteenada isgaarsiinta shirkadda Safaricom hase ahaatee wax kale oo khasaare ah aysan geysan waxay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidanka booliska ee deegaankaasi fariisinta kule madax uu hogaaminayay barasaabka Wajeer ayaa gaaray goobta uu weerarku ka dhacay xildhibaanka bariga Wajeer laga soo doorto ah meesha uu weerarku ka dhacay Rashiid Qaasim Amiin ayaa inooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen sidoo kalena waxa uu mahad celiyay ciidanka ammaanka markay soo galeen habeen 8 saac ay soo galeen waxay laba lugood bay ku galeen midna waxay abaareen meesha la yiraahdo birta oo telecommunication mask ay abaareen kuwa kalena waxay galeen xarada askarta ay galeen sida ay u baaqiyaan oo in ka hakiyaan askarta soo bixitaankeeda markaan dhib weyn ayaana gaaray xilligaasayto magaaladii maanta waa dansan tahay waxa war isgaarsiin iyo hadal isgaarsiin oo maanta ka socdana male mashiintii aad bay u burburtay markaan waxay ugu talagaleen sifo yacni socodkooda iyo raadkooda iyo meel ay ku jiraan inaan lagu ogaanin ayay ku talagaleen waayo dhulkii waxaa noqday dhul maanta isgaarsiinteeda iyo telefoonyaalkeeda iyo meel allah meesha ay ku jiraan al-shabaab in lagu ogaan karo ay arkeen marka waxay ku talagaleen inay burburiyaan safaraadkooda iyo socdaalkooda iyo maamulkooda ee dhulka ku socon jireen oo qaalib ka noqon waayahanayto in ay u suurtagelin sababta kale waxa waaye dadweynaha ayaan kicinay waagi hore in al-shabaab aan iska celino waayo al-shabaab ayaheena iyo maamulkeena iyo dhulkeena ayaa u socota midnaasna mid aan anaga xal ka aadna ma jirto dad ay go'aan ay ku gaareen dadka deegaanka in ay iska celiyaan ay markaan tii waxay u egtahay shayga aan isticmaalin waxa isgaarsiinta markaan waxay u egtahay maamulkii iyo hor socodkii dadweynaha iyo talada ay gaareen tii dad maanta dib u celina inay u egtahay markaan waxaan leenahay anaga al-shabaab meel aan mar dambe aan u qaadanayno ma jirto waxaan mahad u celinayaa dowladda Kenya oo maalan CS Matiang'i iyo IG-ga habeen dhoweyd markay dhactooyinka dhacaan information-ka aad bay u heleen toos bay u heleen dadkii ciidankii joogay magaalooyinka Qarse iyo Kutul iyo Konton kulligood bay soo baxeen sifa ay ku taageeraan magaalada Sayto Qorof Xaraare si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo xarakada al-shabaab ay weerar ka geystaan ismaamulka Wajeer tan iyo intii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan guddiga heer qaran ee kahortagga iyo diyaargarowga xanuunka coronavirus ee Somaliland ayaa maanta deeq kala wareegay shirkadda Dahabshiil Group deeqdaasi oo la gaarsiin doono dadka ku tabaaloobay xanuunkaasi coronavirus deeqdaasi oo ka kooban qalab caafimaad iyo lacag cadaan ah lacagtaasi oo kala ah $600,000 oo loogu talagalay qalab caafimaad iyo $200,000 oo la siin doono raashin ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mareeyo ku-xigeenka shirkadda Dahabshiil Group Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ka waramay deeqdaasi ay gaarsiiyeen bulshada Somaliland ee ku waxyeeloobay xanuunka COVID-19 shirkad ahaan waxaan u qorsheynay 600,000 qalab noqonaya qalab aad u muhiim ah oo ah kuwa oxygen-ta sameeya mishiinada wax lagu baadho iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba waxa intaa dheer 200,000 oo u dhigma 4,000 oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashin loo siiyo ama dawooyin loo siiyo ama kaash loo siiyaba guud ahaan shirkadu intaasaan ugu talagalay sidii caadada ahayd ee shirkada looga bartay mana noqon doonto tii ugu dambeysay geestooda iyagna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina uga mahad celiyay shirkadda Dahabshiil Group wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Cumar Cabdilaahi Bade iyo wasiirka diinta iyo qaafta ee Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed qalab laga maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno oo ugu horeeyo
mashiinkii lagu baarayay xanuunka oo PCR oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaano cidda xanuunkaa qabta iyo ciddaan qabin cidda lagu shakisan yahay taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa waxa kale oo shirkaddu ay keenaysaa 2 mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oksijiinta oonu aaminsanahay inay imiga ma ahe weligeedba ay noqon doonaan muxuu ahaa waxtar weyn oo dadku baahida loo qabo oksijiintu xanuun kanun ma aha xanuun walba qalliin kastoo la sameynayo qofku wuu baahan oksijiin lagu xidho kaasina baahi weyn baa taallay waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayey oo isna ventilatorradii ah oo 3 xabbo ah xanuunku waxaad moodaa inuu imiga tiradu sii badanayso dadkii waaweynaana uu gaarhaya waxaan ku tala bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama aqoon ha noqdo ama ganacsade ha noqdo ama sheekh ha noqdee dadku in taxadir gaara la muujiyo maalka ay yani maamulku soo bixiyeen ee u horeeyay maxamed saciidna waxaan leenahay ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo inta u hadhayna ilaahay ha u barkeeyo wuxuu baxsadana ilaahay subxaana wataala halkii ugu talagalay oo wanaagsan alla ha u geliyo mid aakhira anfacda allah ka yeelo waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala xanuunka haynaga dulqaado sadaqada u bixiyey barkadeeda ilaahay subxaana watacaala isagana hakaga dhowray shirkadiisa ummadda reer Soomaaliland muslimiinta oo dhan ilaahay subxaana watacaala caawintaas iyo fadligeeda ilaahay uu gaarsiin karaa ilaahay hanaga dhowro xanuunka hanaga dhowro waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland sida walaalkeen Dahabshiil group ay ugu deeqeen deeqda qiimaha badan ee wanaagsan waxaan leenahay ku dayda gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Saylici sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo diyaargarowga xanuunka coronavirus ee Somaliland oo isna uga mahad celiyay shirkadda Dahabshiil Group ay uga qayb qaadatay la tacaalidda bulshada Somaliland ee ku waxyeeloobay xanuunkaasi COVID-19 ama aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil Group oo deeqdii koowaad oo aad u lixdan maanta na soo gaarsiisay runtii waxaan ka guddoonnay $600,000 iyo $200,000 oo kaasha oo iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantay $800,000 ayaan ka guddoonnay haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 ilaahayna waxaan ka rajaynaa waxaan maanta wadnaa runtii wax badan oo kaba taraya dee wax isleen hawn intii taalkeena baynu haddaan xukuumaddiina iyo dee shacbigeena iyo ganacsadeena waxaan isku tegaynaa inaan balcayno intii horreysay aynu gaarsiino magaalooyinka waaweyn 12 magaalo waaweyn aan gaarsiino 40,000 qoys inaan gaarsiino inta ku xigtana haddana ilaa 20,000 qoys oo kalena targetkeena 60,000 qoys Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog Hargeysa farxad weyn bay tahay inaan maanta idinkala qayb galo xafladan kooban ee lagu dhaarinayo labada gudoomiye ee maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka Banaadir marka koowaad waxaan idinku hambaliyeynayaa xilalkaasi oo idin magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib soo jeedintii gudoomiyaha maxkamadda sare inagoo madaxweynahana ku hambalyeynayna uga mahadnaqayna garashada uu gartay in garsoorka ay hogaamiyaan rag dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo lagu tuhmayo hufnaan alla ka cabsi iyo daacadnimo intaba mar labaad waxaan idinku ducaynayaa hawshaasi iyo mas'uuliyadda culus ee aad qaadeen in Ilaahay idin fududeeyo waxa aad qaadeen aad maanta u dhaarateen waxa weeye waa ammaano ammaanaduna culayskeeda ayay leedahay cirka iyo dhulka iyo buuraha ayaa diiday inay qaadaan kadibna waxa aqbalay aadamaha iyo sidaas culayskeeda u leh ayaa arrintaydun kuma aanta aad qaadeen sida gaarka u qaadeen annaguna hore waan u sii haynay ay ammaanooyinka kale oo dhan ka culays badan tahay oo ay ka dhib badan tahay waayo waxa tahay qofka kaliyaata ee saxiixiisa qof nafta looga qaadi karo waxa tahay qofka kaliyaata ee saxiixiisa qof xorriyadiisa looga qaadi karo xabsiga loo geyn karo waxa tahay qofka kaliyaata
ee qofna xidhi kara qofna sii dayn kara qofna dil ku xukumi kara mas-uuliyadda intaa leeg ayaa idin saaran waxaa idiin dheer markaa awoodda noocaasa ama ammaanada intaa leeg waxay saaran tahay qof kasta oo garsooraa waxaa idinka intaas idiin dheer waxaad hagaysaan oo aad maamulaysaan dhammaan garsoorayaasha shaqadaa qabanaya maxkamadaha aad joogtaan marka waxaa idiin dheer mas-uuliyad maamul ayaa haddana idiin dheer marka mas-uuliyadda runtii maanta aad qaadeen waxa weeye mas-uuliyad aad iyo aad iyo aad u ballaadhan garsoorayaashana sida xadiiskii nebiga lagu haya calayhi salaatu wasalaam 3 qaybood un bay noqoni mid kaliya hataa jannada tegi labada kalena waxa weeye waxa loo ballan qaaday inay naarta tagaan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaynu noqono midka jannada tegaya laakiin innaga ayay inagu xidhan tahay jidka aynu qaadayna haddii aynu noqono garsoorayaal iyo guddoomiyayaal cadaaliyiina shaqada ay hayaan alla uga cabsada siyaasadii aanay saamayn dhaqaale aanu saamayn qabyaaladi aanay saamayn saaxiibtinimo aanay saamayn wax kasta u eega sida ay sheegaysa dhaarta aynu aad hadda ku dhaarateen ee ah inaad shaqadiina u gudanaysaan sida si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka isla markaana ay ku jirto danta cadaaladda oo keliya taa haddii aad u gudataan oo aad dhaartaa rumaysaan idinkoo ilaahay tala saaranaya waxaa hubaal ah markaa inaad maraysaan jidka fiican ee idinku aroorin karaa ama inagu aroorin karaa jannada ilaahay taas hay naga yeele caqabaduhu waa badan yihiin waxaynu joognaa dal burbur ku dhacay dhibaatooyin badan ka dhaceen dulmigu iska caadi noqday dhiigga qofka in la daadiyaa uu caadi noqday hantida iyo maxaan ku dhaca ay ummaddu leedahay in la kala dhacay caadi noqotay markhaati beenaaluhu aanu micno badan lahayn dal noocaasaynu joognaa dal waxaynu joognaa laga yaabo qofku inuu kitaab gacanta saaro been isagoo ku dhaaranaya marmaragna ku furaya dal waxaynu joognaa dokumentiyadii dowladdu lahayd ama burbureen ama la xaday ama shacab gacanta u galeen dal waxaynu joognaa ay adag tahay in dadka aad u garsoorayso aad sugto caddaymaha iyo cidda xaqa leh markaa taasina waxay ku faraysaa dadaal ka ballaadhan intii laga filayay garsoorayaasha dalalka caadiga ah jooga in la bixiyo dadaal ka badan in la bixiyo marka ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu hawshaas inoo fududeeyo waxa iyaduna lagama maarmaana oo lagaga bixi karaa hawshaas wada shaqaynta iyo gacmo isqabsiga galaduba waxay saaran tahay wax isu geegeyn haddii gacmaha la isqabsado oo koox ahaan loo shaqeeyo oo hal hadaf iyo hal aragti ah la yeesho oo ah in ummadani ay cadaalad hesho waxa hubaal ah xaqiiqo ah in la guuleysanayo haddii laakiin la kala tafaraaruqo oo la wada shaqayn waayo oo qof walba gaarkiisa u cararo waxa xaqiiqo ah in fashil lagu dambaynayo waayo gacmuhu wadajir ayay wax ku gooyaan wadajir bay wax ku qabtaan marka ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in mas'uuliyadaasi adag iyo xilalkaasi culus aynu ummadda Soomaaliyeed u qaadnay inaynu ka soo baxno inaynu qayb ka noqono dib u soo kabashada iyo dib u soo noqoshada iyo dib u soo nooleynta rajadii ummadda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed rajada ay naga qabto inaynu rumayno ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan ugu horeyn taasi u dirayaa guddoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse iyo dhammaan intii la dhimatay ama ha noqoto staafkiisii gaarka ahaa ama ha noqoto muwaadiniintii kale ee reer Puntland ee kuwii dariiqa marayay iyo kuwii hogtay meeshaan joogay gobolka xafiiska gobolka ilaahay u naxariistay intii dhimatay tobankii dambe oo Rabadaan ayaa lagu jiray muslim sooman oo tobankii dambe oo Rabadaanka ku jiray isagu shahiid buu ah gudoomiyaha gobolka iyo intii la dhimatayba shahiid bay ahaayeen ilaahay baa u ballan qaaday quraankiisu kaga hadlay axaadiista nabiga ka hadashay shahiid bay ahaayeen kuwa ka shaqeeyay maalin Rabadaan oo tobankii dambe lagu jiro inay qof islaama dilaan kuwii ka soo shaqeeyay kuwii go'aanka iska lahaa
iyo kuwii ku dhintayna